Ma qiyaasi kartaa in saaxiibkaaga kuugu dhow ee aad ku aamintay hantidaada iyo sirtaada oo dhan uu noqon karo qofka nolosha ku dhaafiyay, kadibna muddo 5 sano ah ku noolaaday magacaaga iyo hantidaadaba? Tani waa qisada Qadaafi Faraj, ninkii ruuxay dalka Masar ee loo yaqaanay gacan ku dhiglaha Giza. Qadaafi wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Giza ee dalka Masar, haystana shahaadada qaanuunka ama sharciga. Qadaafi wuxuu lahaa saaxiib aad ugu dhow oo la oran jiray Rida, oo ahaa injineer ka shaqeynaya isla waqtigaas dalka Sacuudi. Rida wuxuu Qadaafi u soo diray lacagtiisa iyo keydkiisa oo dhan si uu ganacsi iyo guryo ugu maalgeliyo Masar, maadaama uu ahaa saaxiib uu aad ugu kalsoon yahay. Laakiin Qadaafi lacagtii oo dhan wuxuu u qaatay si gaar ah, wuxuuna sameeyay waraago been abuur ah. Sanadkii 2015 Rida ayaa si kedis ah ugu soo laabtay Masar, wuxuuna dalbaday xisaab xir in loo sameeyo. Qadaafi wuxuu ku casuumay qado gurigiisa, wuxuuna cuntada ugu daray sun dilaa ah. Markii uu saaxiibkii goobta ku nafbaxayna, wuxuu ku aasay qol ka mid ah dabaqa hoose ee gurigiisa, wuxuuna dusha ka saaray shamiinto. Qadaafi wuxuu qoyskii Rida u soo diray fariin moobilka ah asoo iska dhigaya Rida. Wuxuu u qoray booliiska ayaa ay qabtay oo dhibaato ayaan ku jira, si ay ugu moodaan inuu isagu lumay. Intii ay qoyska Rida raadinayeen wiilkooda, Qadaafi wuxuu bilaabay inuu adeegsado aqoonsigii iyo baasaboorkii Rida isagoo magaciisa ku noolaaday. Xaaskiisa Fatma ayaa ogaatay in ninkeedu uu xaday lacag tiro badan, waxayna ka qaadatay lacag tiradeedu ay gaarayso 350,000 oo geniga Masar ah. Qadaafina wuxuu adeegsaday falkii uu saaxiibkiisa ku dilay, markay dhimatayna wuxuu ku aasay qolkii Rida mid ku dhigan. Nadia waxay ahayd gabar ka shaqeynaysay dukaanka uu leeyahay Qadaafi, wuxuuna damcay Qadaafi inuu guursado Nadia walaasheeda ka yar. Laakiin Nadia ayaa ku hanjabtay inay sirihiisa banaanka soo dhigi doonto hadduu dhaafi waayo walaasheed. Isna wuxuu u dilay si la mid ah sidii labadii qof ee hore uu u khaarijiyay, wuxuuna qoyskeeda u sheegay inay la baxsatay nin u dhashay dalka Lubnaan oo soo saare faneed ahaa si aan loo raadin. Markii uu dareemay in magaalada Giza loogu shakisan yahay, wuxuu u guuray magaalada Alexandria. Halkaas wuxuu ku furtay dukaamo, wuxuuna dadka u sheegay inuu yahay injineer Rida, isagoo isticmaalaya magaca iyo aqoonsiga saaxiibkiisa uu dilay. Wuxuu guursaday dhowr dumar ah oo kale, mid ka mid ah dumarkaas ayuu ka xaday dahab iyo lacag badan. Markii ay ogaatay, wuxuu isku dayay inuu sumeeyo, laakiin way ka badbaaday iyadoo u baxsatay guriga qoyskeeda. Ugu dambeyntii, sanadkii 2020 Qadaafi wuxuu sameeyay qalad weyn oo keenay inay dunto boqortooyadiisii dambiyada. Wuxuu isku dayay inuu dhaco dukaan dahabka lagu iibiyo isagoo xiran dhar wajiga qarinaya. Laakiin booliiska Alexandria ayaa qabtay dambigaas awgiis, waxaana lagu xukumay xarig isagoo ku magacaaban injineer Rida. Qoyska injineerka saxda ah ee Rida marna ma joojin raadinta wiilkooda. 5 sano kadibna waxay ogaadeen in qof lagu magacaabo Rida uu ku xiran yahay xabsiga Alexandria loona haysto dambi xatooyo ah. Markii ay xabsiga ku booqdeen si ay u arkaan wiilkooda, waxay ka naxeen markii ay arkeen in ninka xiran uu yahay Qadaafi oo ahaa saaxiibkii ugu dhowaa wiilkooda, isna iska dhigaya Rida. Booliiskii arrinka ayaa loo sheegay, waxaana caddaatay in ninkan uu yahay Qadaafi Faraj. Baaritaan adag kadibna wuxuu qirtay dambiyadii uu galay. Booliiskii waxay geeyeen gurigiisii hore ee Giza, halkaas oo laga qoday dabaqa hoose, waxaana laga soo bixiyay lafaha iyo haraaga jirka saaxiibkiisii Rida, xaaskiisii Fatma iyo waliba Nadia. Sanadkii 2021 maxkamadda Masar waxay ninkan ku xukuntay xukun dil toogasho ah oo waliba dhowr jeer ku celis ah. Qisadan argagaxa leh ee Safax al-Giza waxay noqotay mid aad caan ugu ah dalkooda Masar, xitaa waxaana laga sameeyay taxane filim ah kaas oo muujinaya in qof dambiyo waaweyn u geysan karo bulshada isagoo iska dhigaya qof diin iyo dabeecad fiican leh.